السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل الصومالي then English إن شاء الله تعالى. ولا شرفت لكسر هذا البرنامج كي نولا شربته وإنكي صباح الخير education حافظة هي سلندن وأنك كان لنا حقوق عروض الصوماليات أون دلني وقربهم كنا لنا أسوء إلينه بدنا أمدنا الصوماليات وحلقوا مشغول أفريقيا ينفستمنت إن هالكاس ولا فكره برنامج كيدا أنت أنا نوجد بين كهرة وعاد وقعت النبي جانا صلى الله عليه وسلم وحجري إن لنفسك عليك حقا نفط هذا حق بيكون هذا حق هذا سي حق هذا وحوي إن هذا متقنا إلى ما أنت وذر كيسا ولا لا شرفت له وهيلندون سايكل كومبيتيشن وي ما شاء الله ragga intaas leedahay arkaysaan badanaa meeshaan aan joogo paaga dad badan ayaa dad yaraa imaada subaxyadii maanta competition meesha dhan waa nagala xiree meesha koraan ku soconaa socod dadka loo suubiyaa jira meeshaan plana jira markiisa competitionka aad jirinna dee waxaa weeye annaga waan ku socon karnaa meesha oo dee waddadaase laakiin markaad competition jiro waa inaan waddada koro dadka loo hagaajiye aan fuulnoon ku soconno marka walaalaha sharafta leh xaquuqdii carruurta waa inaan u soo celin annagay ka hadlayna xaquuqdooda marka waxaa ka mid aan dhahnay carruurtan waxay u baahan yihiin inaan siino waxay u baahan yihiin carruurtan inaan siino marka walaalkay walaashay goormaa kugu dambaysa yani carruurtaada aad u soo gedi bicycle u soo gedi hadda competitionka anoo kale bicycle waad ogtihiin waa waxyaalaha jirka dhisa waa waxyaalaha caafimaadka soo celiyo waa waxyaalaha cunugaada buuran oo mataqaanaa runtii si cuntadu cunayay buurtay oo laga yaabo xataa wadnaha inuu istaago wuxuu isaga ridi lahaay weeye markaan goormaa kugu dambaysa baaskila u soo gadid waahu baa dhowr jeer inuu ku weydiiyey laakiin aad dhahday hooya aniga ma awoodi aabba hooya ma awoodi lacagtii yarteedu shaqaynaysa ama ayaga lagugu siina afrika aad u xawilaysa soomaha walaashay walaalkay fadlan waa ku baryaae xaquuqdan waa xaquuqa tara weeye allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yuusikum allahu fii awlaadikum alla wuxuu idiin dardaarmayaa carruurtiinna marka maanta brograamkaydu wuxuu ku saabsan yahay walaalaha sharafta leh sportka waa diinteen islaamka ay ka mid tahay sportka diinteen islaamka ay ka mid tahay orodka iyo cycliska iyo mataqaanaa cunugii oo lagdanta iyo waxaasoo dhammaala nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtu waa suubin jireen marka waxaa loo baahan yahay walaashay bal lacagtan mataqaanaa ha ka dhaquulin cunugaada baaskil u soo gad marka baaskilyaasha waa muhiim way u soo gad maanta waa arkaysaa raggan say u tartamayaan marka insha allahu tacaala ummaddeena soomaaliya waxaan u dardaarmayaa iyo ummadda kale oo muslimiinta meel kastoo joogaanba carruurta ha laga fikiro waxaas u baahan yahay carruurtan waxay u baahan yihiin siiyo baaskiliskaas yarka ah wax aad u badan ma joogo qaali maaha waxaaba laga yaabaa wiilkaada markii dambe inuu competition galo national inuu galo ka bacdina uu dee lacag kuu soo jiidaaba laga yaabaa marka laakiin adiga ha ka dhaquulin dear respected brothers first of all Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam he said inna li nafsika alayka haqqa your soul has right over you dear respected brothers and sisters everybody must look after yourself you have to drink a lot of water and walk every day if you can if you are not busy and also eat a healthy food. My point, dear respected brothers, today is our children, the right of our children in the Western world. Majority of us, the children's right, we neglected. We always busy back home where we are from. All of us are investing back home. No one of us, of course, there are few people who are investing their children here in Western world, but majority of the foreigners are investing back home, forgetting their children will have children here in Western world. Unfortunately, this is not the way we think. The old people, the way we think is only moving back. Dear respected brothers, you can see the cyclists here today, and there's a competition, Hillingdon, and competition, bicycle competition. Dear respected brothers, how many times your children have asked you a bicycle and you say, I cannot afford? How many times? I bet there's a lot of time they ask your children to buy for them a bicycle, but you say, I can't afford it. So dear respected brothers, make sure you buy a bicycle for your children. It's very important. It's very important you can buy for your children a bicycle. Why? Because this is your children, this is their right, dear respected brothers. So inshallah ta'ala, today what I'm encouraging and myself is make sure you buy a bicycle for your children. I am sure they ask you several times, but you say, I cannot afford. And where is the money you have been working? All of it is going. You can see the cyclists, mashallah, enjoying themselves as well as building their body. If you want brothers and sisters to reduce your weight and maybe your child is very overweight,
Make sure you buy a bicycle. Buy them for a bicycle. Please make sure let us invest our children. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq. May Allah subhanahu wa ta'ala make our children who are the leaders of tomorrow in Western world, who spread Islam, who become a strong, energetic, a Muslim, practicing Muslim. Inshallah ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala make us those who think their children. Barakallahu feekum wa jazakumullahu khair al-jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.